واديك وكبر كبدنا يهودا ما أنت ساوي هنا نيك وكبر كبدنا هو لما أسبوع كلا نودي من رصيب برا إيران ولي مدفع ما أنا سوري sidoo kale waaxda dhaqan celinta ee maamulka Yuhuudna waxay sheegeen in 12,000 oo askari iyo xubno ka tirsan hay'adaha amnigu laga dhaawacay ilaahay baa runta nagu jecel Yuhuud maanta maalin ay ka daran tahay wallahi inaysan jirin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa idin salaamaya dhamaantiin shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida ka joogtaan waa walaalkin Cabdullaahi Macal Xuseen waa rajaynaya anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigan uu mar kale dib inoo kulansiiyay isaga ay mahadaasi oo idil u sugnaatay inta dhiban rabbi ha ka dulqaado inta ay isugu toosan tahay in Allah u barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan ku wada salino baroorta yahuudu isbuucyada soo socda way socon doontaa waliba waxa u sii dhiman jawaabtii Iiraan ay ku hanjabto ay tiri Iiraan xaq bay u leedahay kamana tanaasuli doonto madaafiicdii ay yahuudu ku soo tuurtay ee ciidamada ama askarta looga laayay maxay ahayd jamhuuriyadda Iiraan in ay ka jawaabto wali waay madaafiicdana waa la sugayaa madaafiicda waan la isla gaarin maanta sidaa bay u wada barooranayaan xaaladdu aad bay u adag tahay way cakiran tahay sheekadu way isla qalibintay meel aanay ka filinin bay yahuudi wax ogaga soo baxeen muuqaalkan idin kula wadaagayay soo dhawaada magacayga waxaa la yiraahdaa Fartuun Maxamed Warsame waxaana ku noolahay waddanka Ingiriiska sidoo kale waxaan ahay leader ama hogaamiye company-geena weyn ee Forever Living Product walaalayaal maanta opportunity ayaa ka bannaan reer UK opportunity-gaas oon jeclahay inaad nagala faa'iidaysataan oo ina leeyahay kaalay oo nagala faa'iidaysta opportunity-gaas muxuu yahay opportunity-gaas waa shaqo abuur Soomaali weyn meel kasta aad joogtaan ayaad ka ganacsan kartaan company-gaani laakiin dadka reer UK ayaan maanta la hadlayaa reer UK waxay haystaan opportunity qiimo dhimis ah product-ga haddaad gadanaysid oo isku daaweynaysid oo fiitamiino badan iyo waxyaalo badan oo haya company-gaani sidoo kale haddii aad noqonaysid FBO aad kaga faa'iidaysanaysidna 40 pound discount ayaad haysataa haddaad alaabta rabtidna 30 pound discount ayaad haysataa walaalayaal kaalaya oo nagala faa'iidaysta aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad manager Fartuun Warsame waxay joogtaa waddanka UK bay joogtaa runtii fursadan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay dadka qaaradda Yurub iyo UK jooga aad bay muhiim idinku tahay telefoon lambarkeedu shaashada dabcan ka aragteen linkigana waxaan idin soo dhigi doonaa muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya waan rajaynayaa inaad tadwacdaan manager Fartuun Warsame aad ka faa'iideysan doontaan aad baa u mahadsantiin aad iyo aad walaalayaal sida aad la socotaan ama hordhaca barnaamijkaygaba aad ku soo aragteen waaxda dhaqan celinta ee wasaaradda difaaca Israa'iil ama Yahuuda waxa ay sheegeen oo afkooda ay ka xaqiijiyeen in 12,000 oo askari iyo xubno ka tirsan waliba hay'adaha amniga ay ka dhaawacmeen tan iyo intii lagu qaaday weerarkii taariikhdooda madow baalka hore ay ka gashay ee 7 Oktoobar sanadii 2023 macnaha waxay leeyihiin tan iyo markii weerarka la soo qaaday ee ciidamada Yahuudu dagaalada infantry-ga dhulka ay galeen waxaana laga dhaawacay bay ku leeyihiin 12,000 oo askari iyo waliba xubno ka tirsan hay'adaha nabadgelyada macnaha oo runtii aad muhiim ugu ahaa Yahuuda ayaa dhaawacay halis ay soo gaareen waliba waxa lagu leeyahay 12,000 ee ciidamada iyo qaar kamid ah hay'adaha sirdoonka ama amniga ee maamulka Yahuuda qaar kamid ah oo waliba tiradooda lagu sheegay 1,500 askari in ay dhaawacmeen laba jeer in ay dhaawacmeen warbixintaas iyo qoraalkaas statementiga waxa soo saaray wasaaradda gaashaandhiga ee maamulka Yahuuda ayaa arintaas maanta soo saartay waaya haddaba arintu markii halka mareyso ayaan dhaweeto ninka idin muuqda ee lejanka ah markii uu weerarka lama huraanka ah ee runtii duruuftu ay kaliftay uu ku qaaday maxay ay to maamulka Yahuuda waxa ay sheegtay in halka dad ay kaga dhinteen shacab caadi ah laakiin waxa meesha lagu kulaaday oo macnaha waxa weeyaan lagu waayo halka ku dhibaatoobay waxay u badnaayeen baa lagu leeyahay ciidamo ka tirsan maxay to maamulka Yahuuda haddaba arintii isweydiinta badan waxa waaye ninkan idin muuqdo sawirkiisu halka idin kaga muuqdo waa ninkii ugu kibirka badnaa ee wasaaradda maaliyadda madaxa ka ahaa ee maamulka Yahuuda maanta sida ayuu u barooranayaa oo uu oynayaa waxa uu leeyahay waxaan ka shalaysanahay dhibaatooyinka soo gaaray ciidamadeena dadkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo saraakiisheenii aan macnaha waxa waaye ku aaminay sidii ay ku soo afjari lahaayeen jamaahiirta Xamaas ay ku soo afjari lahaayeen in maanta ayagii la laayo runtii aad baan ugu murugeysanahay
weliba wuxuu ka sii murugaysan yahay oo ka oynayaa dhaqaalihii iyo hantidii ku baxday. בימים האחרונים אנחנו רואים, קוראים ושומעים סיפורים קורעי לב. wuxuu leeyahay maalmihii u dambeeyey waxaan arkaynay waan akhrinaynay oo caalamka iyo idaacadaha iyo warbaahinta aan ka akhrinaynay kana maqlaynay qisooyin arrimo macnaha dee runtii aad u murugo badan oo taabanaya quluubteenna oo annaga na murug gelinaya macnaha. נופלים, בתוכם הרבה מאוד חיילי מילואים מבוגרים. waxaana ka mid ah kuwo fara badan oo ciidamo ah oo runtii dee dad aad u qiimo badan ah oo sharaf iyo karaamo agtanada ka leh, annaga agtanada kama leh agtooda waaye. qaar ka mid oo fara badan dadka qiimaha leh waa waalidiin, marka dadka ayaga ay laayeen waalidiin maaha macnaha. alkaylu alladii tukiilu bihi linnaas sayukaalu bihi calayk. מלוויה ללוויה, משבעה לשבעה. maalinba waxaan u soo taaganahay oon u soo joognaa oon goobjoog ka nahay janaasatu janaaso, macnaha meyd baa la keenaa, mid kale laga daba keenaa. hadda ka horba qolyaha maaragtay meydadka dhaqa ee qaabilsan maaragtay qubuuraha ilaalintooda iyo meydadka iyo waxaa dhaqa hadda ka hor bay sheegeenba maalintii ugu yaraan waxay dhaheen waxa la keenaa intii dagaalka dee faraha ba'an la isaga goostay. hadda duqeyn bay sheekadu kusoo biyo shubatay. waxay lahaayeen maalintan 50 la keenin 40 baa la keenaa meyd ah. qubuurtu dee meelo kala duwan bay ku yaalaan. macnaha ninkaa waxaa laga wareysanaya markaa qubuurtii isaga uu joogay baa laga wareysanaya. wuxuu taagan yahay qubuurahan annaga hadda mas-uulka aan ka nahay iyo qaybtan meydadka lagu kaydiyo haddaanan 50 la keenin 40 baa maalintii la keenaa oo meyd ah. marka 40 sanad ku dhufo 12 bilood runta maa laisu sheego. פוגשים את כל עם ישראל, אבל לא ניתן להתעלם. waxaan la kulanay oo macnaha waxa weeyaan aan kulamo la yeelanay dhinacyada kala duwan ee macnaha waxa weeye shacabka yahuudda ayaan la yeelanay kulamadu lala yeelanayo micno badan kuma fadhiyaan. waa kulamo ama loogu baroor diiqayo ama lagu dhiirigelinayo la leeyahay war dhib ma laha nimankan waa soo afjareenaaye xitaa caruurtiinina keena si ay ciidamo u qortaan. wax kale ma jiraante. hal sana dhalinyaro yaryar oo jamaahiira la hor taagan yahay oo Maraykan garab taagan yahay, wadamadii maanta adduunka ugu tunka weynaa ay garab taagan yihiin oo ay leeyihiin wiilasha yaryarkaa soo afjara. xitaa qaar ka mid ah wadamada Carabeed baa ku jira oo dhahaya musiibadan nimankan hadday sii wadaan waxay gaari doontaa hadhow hadday nimankan yahuudda iska xoreeyaan annagay saameyn nagu yeelan doontaa. si aanay arrintaas saameyn nagu yeelan waa inaan Xamaas la dagaalamo. wadamo carab baa dhahay, anigu ma dhihin. בכך שהציונות הדתית runtuu sheegay, laakiin la iskama indha tiri karo xaqiiqada meesha taal. in jab uu na soo gaaray, dhibaata na soo gaartay, ciidamadanadii la laayay, dhibaato badan ay na soo gaartay, hadafkii aan lahaynna weli aanaan gaarin. wax la iska indha tiri kara ma aha ayuu taagan yahay. hadda ninka nooca u calaacalayo waa ninka ugu kibirka badan marka laga soo tago wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda. marka laga soo tago waa ninka labaad ee ugu kibirka iyo kadkaadinta badan wa oo xitaa heer ku gaaray in shacabkii kale ee daanta kala deganaa ee Falastiiniinta ah yiri ha laga jaro maxay to bangiyadooda ha la xiro saan lacag bal isugu xawil macnaha lacagaha la isu dirdiro saan la isugu dirin waa in hawada la xiraa. נפלו על הגנת המדינה. macnaha wuxuu leeyahay dagaalkaas dadka ku dhintay oo lagu dilay oo ku laaday waxa kamid ah qaar kamid ah dadkii xukunka hayay oo maamulka hayay Israa'iil waaweyn baa la dilay oo maamulka Yahuudda aanan ka go'in baa la dilay. waxa la dilay dad ayagu u fadwoonayay oo macnaha Yahuudda u fadwoonayay ayagu culimo u yaqaanaan waa la laayay. si hadda isagu sheegay wuxuu leeyahay dad wanaagsan oo haybada lahaa oo runtii aad iyo aad looga heebeysan jiray oo maamulka Yahuudda ka tirsan ayaga laftirkooda way ku nafwaayeen. waxay ku nafwaayeen siday u difaaci lahaayeen dalkooda. marka baroortu waa iska soconaysaa. dadka muslimiintu maanta in ninkaas in nooca maanta isagoo calaacalaya oo ooynaya oo baraha bulshada muuqaaladiisa laga arko runtii dad badan oo muslimiin ah qalbiyada ayaa u qabowday. baroortiisa iyo oohintiisa qalbiyada ayay u qaboojisay. laakiin ma maanta kaliya ku eg tahay maya ee way sii socon doontaa ilaa toddobaadyada soo socda. oohintu ma tira yara, aad bay u tira badan tahay. dagaaladii marka dhanka infantryga ahaa ee waxa weeyaan Xisbullah iyo maamulka Yahuudda ciidamadooda ka dhaxeeyay runtii aad bay ugu jabeen. meel kasta oo ay damcaan inay galaanba albaabadu waa ka xiran yihiin. dantu marka waxay ku kaliftay inay hawada wax ka soo duqeeyaan oo meelaha wax ka soo turtuuraan oo shacab masaakiin waxba aan galabsan oo dagaalkaba qayb aan ka ahayn oo meel iska degan inay madaafiicdii ay soo tuurayeen ay ku dhacaan iyo weliba dad kale oo barakacay oo deegaanadii ay u barakaceen inta lagaga daba tegay lagu duqeeyo. laakiin dagaalkii infantry markuu yahay oo la soo fadhiyo adeer sheekada way adkaatay. maamulka Yahuuddana way ogaayeen
ciidamo way is adkeynayeen moogii way ogaayeen ciidamadoodu inaysan garanayn oo aysan u babac dhigi karin in ay la galaan jamaahiirta xamaas ama xisbullah dagaal dhuleed ama infantry inay la galaan waa ayagu way ogyihiin laakiin is adkeyn baa jirta ninkan kursigiisu intaa ku ilaashanaya wuxuu jecel yahay marka hadda ma fiicina meel loo tuuro oo meel kale loo tuuro oo Lebanon loo tuuro oo maxay ay too Iran loo tuuro oo xaggana macnaha dhibaata ay ka haysato xuutiyiinta ee wadooyinka ka xireen caqabad bay ku noqotay inta marka ninka wuxuu u sameeynayaa si macnaha kursigan waqtigiisu u sii dheeraado oo kursiga ugu sii fadhiyo waayo wuxuu og yahay haddii doorasho la galo wareega koowaad ba in lagu kala baxayo ayuu dareensan yahay si marka aanu kursiga uga degin wuxuu rabaa marka inuu meel walbaaba isku tataabto oo la yiraahdo yuhuud bana soo weerartay madfac ku tuura waa la dilay saana dhacday uu la qayliyo si marka doorashadu ay dib ugu dhacdo laakiin dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyadan faraha badan ee maamulka yuhuudda ka dhisan ka jira way fahmeen sheekada oo waxay leeyihiin ninkan wuxuu dheereysanayaa cumrigiisa iyo kursiga kama ahan difaacidda leh kursigan iyo dalka laga qabto bay taagan yihiin marka waa ilaahay mahadi ninkii aadka ugu darnaa maxay to shacabka reer Falastiin oo wasiirka maaliyadda ahaa oo bahasha saa u kala yaacinay in maanta uu baraha bulshada ka soo ooyo anaga farxad bay noo tahay farxadda inay ila qaybsan doontaan baan rajaynayaa insha Allah taala marka nasrigiina waa soo dhaweeyay insha Allah taala nasrigi rabbigeena waa soo dhaweeyay anagu ducadayana ilaabin ducada aan badino dadkaas walaaladeena aan u duceeyno ducadanada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga aqbalaya ayaguna way u baahan yihiin wayna aaminsan yihiin dadka muslimiinta ee walaaladood inay duca la garab taagan yihiin oo u soo duceynayaan way aaminsan yihiin marka soo rabbigeena gacmaha kor ugu taagano marka soo rabbigeena aan u rukuucno marka soo rabbigeena aan u sujuudno marka soo rabbigeena aan wax weydiisanayno ayaanan ka ilaabin in ducooyinkooda aan ku darno rabbina weydiiso inuu ducada ka aqbalo way aqbalmaysaa insha Allah taala abshiru bil khair waraad baa u mahadsantiin muuqaalada xigeentan isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh